الرحمن الرحيم magacayga waa Ahmed Mahad FKF Secretary Mandera County maanta halka waxa la jooga coachyaal iyo FKF stakeholders oo ka imaaday Mandera East muddo ka hor waxa meeting aan ku galnay Polytechnic waxaan la kulannay 65 teams iyo Mandera East sub branch maanta ayaan meeting ku yeelanay Mandera Polytechnic waxyaalaha badan ee Mandera Polytechnic kala hadlaynay waxay iska qabsi yar oo ka jiri Mandera East sub branch FKF iyo si lagu xalin lahay waxaan ka hadalnay horta qaabkii referral iyo coaches loo train gareyn lahay qaabkii maaragtay loo form gareyn lahay Mandera East team iyo liigiga hadda food nagu soo hayo oo la sheegay inay jiri doono liigi Senators Tournament arimaas ayaan ka hadalnay laakiin arinta muhiimka ah maanta aan meetingkaas u qabanay oo coachyaasha iyo kabtaniyaasha aan ula kulmayno waxay ahayd labadan bari waxa isjiid aska jiray Mandera East branch oo hogaamiyaas u ahay Liban Yahya waxa bilowday inay maaragtay sub branch ay kala go'aan waxaan u sabab ahay adiga hal ama laba shakhsi oo dib u keenay Mandera East sub branch marka halkan waxaan rabnaa maanta inaan ka shaacino inay aan ka qaadnay sidii aan u nahay FKF Mandera branch executive committee inay xilka aan ka qaadnay interim chairman oo ahay Liban Yahya oo ku magac dheer Boya oo xilkaasna aan maanta ahaan aan ku wareejinay ninka hadda dhanka midigta iga fadhiya geeskaas oo la dhahaa Bashir Ali Ibrahim oo ku magac dheer Bashir Baquli oo magaalada kulli Mandera East ay aqaanaan taas ayaa muhiimada ee horta muhiimadan u qabanayna press conference kan ninkan haddan xilkan ka qaadnay oo la dhahaa Liban Yahya ama Boya intaas soo sano ayuu magaalada ka ahay chairman interim chairman oo ahay muddo oo ilaa 6 bilood kale ayaa looga daray bishii September 2024 dan soo dhafnay laakiin wixii ka dambeeyay November 2024 wuxuu bilaabay inuu maaragtay rag branch oo la xifaaltama oo dhankiisa dib weyn aan kala kulano qaladaadkan ku haysano waxa kamid ah inuu electionka November FKF election county inta la gaaray ka hor oo gurubyada kulli ka bixiyay rag mas'uuliyiinta ah oo branch u xilsaanay gurbadaas oo WhatsApp group kulli uu naga bixiyay aan weyni meelan dad aan kala xiriirno oo gurbo kala cusub aan form gareynay markii aan weydiinayna wuxuu dhahay gurbahaas waxay ku soo celin doonaa adminnimada markii electionka uu dhamaado iyo kooxdii rays electionkii alxamdulillah anaka ku guuleysanay ilaa haddana groupkii nooma soo celin midaas ay horta dambiga koowaad oo asaga hadda maanta aan ku bixinayna mid labaad waxa waaye labadan bari wuxuu qaban qaabinayaa wax la dhahaa daris wanaag tournament oo u dhaxeeya team Mandera East ka imaaday iyo team ka imaaday Mandera Balad Xaw Soomaaliya liigi si sharci la'aan oo maaragtay FKF sub branch soo marin ayuu rabaa maaragtay u dhahay aniga chairman aniga xoog isticmaalaya wixii rabaan sameynaya xaggana league saas ayaan ku bilaabay xoog magaaladan aan liigaas ugu bilaabay midaasna waa qalad waa arin maaragtay waafaqsanin FKF constitution oo hadda arimaha weyn oo asaga lagu bixi ay kamid tahay liigan daris wanaag waa liig hata danka Soomaaliya laga diiday dadka maaragtay oo football ku xilsaanay xagga way diideen liigaas waxa la dhahay inuu soo maraa sharciyada kamid wax kamid ah waa inay labada wadan ay fadhiistaan horta ay ka wada heshiiyaan qaabka loo qaban lahay danka amniga waa inay maaragtay idana laga hadla iyadoo waxba la sameeynin oo wax kullu diyaarin oo rabaa inuu xog ku qabta midaasna waan ka hor imaadnay arintaasna ilaa haddana waan diidnay midaas ay u sababay mid labaad in looga bixiyo mid kale labadan bari asagana wuxuu qaatay powergi role-kii uu lahay Mandera East sub branch secretary oo ahay secretary-ga oo federationka inuu u yahay qofka leetayaasha official letters-ki wax kullu soo qori kara laakiin asaga si sharci darro ah ayuu roolkaas ku qaatay waxaad iska arkaysaa habeenimo 8 saaxbeennimo in qardaas maaragtay FKF ay ka socoto la soo gelinayo gurbada ween lagu fadhiistay oo lagu heshiin ma jirto waxyaala noocaas waa waxa maaragtay insubordination oo la ogoleen FKF constitution ka ogoleen maantana u sabab ahayd reason-kii oo lagu bixiyay ninkaas la dhahaa Boya marka waxa ugu dambeysinayaa waxaan dhilahay hadda ninka hadda xilka loo dhibay congratulations Bashir Baquli magaalada aad hadda ku sugaysa sub branch waxa la rabaa in maaragtay aad ku keentid aad adiga aad hogaamiye u noqotid inta interim period ka dhiman
magaaladan wixii ka maqnaay ay sugayeen leadership ay sugayeen ila aad u noqotid oo maanta hogaamiye u noqotid ayaan rabnaa sida u nahay FKF branch Mandera County sauna midaas horta maanta muhiimadda in press conference ka ahayd haddii hadda dhanka dawladda iyo dhanka sponsorship ka gala waxaan rabaa inaan ka codsada ragii oo liiga inay sponsor gareeyaan rabaan Mandera East Mandera South Mandera West hadii maanta arintay Mandera East intuu fadhinaa waxaan rabaa tiimka kulli wali sponsorship ay sugaan in league loo qabto siibatan hadda league senator oo hadda la sheegay in la qaban rabo his excellency senator Ali Roba waxaan ka codsanaynaa in league asu qabta Mandera County asu qabta league si weyn ayaa loo sugayaa dhalinyarada wiligiisa saa garab taagnaan jiray haddana waxaan rabaa inuu sidii si fiican u garab taagnaada oo league sayta hadda la sugayo loo qabta uniformka wax kasta maartay ka faa'iidaan tiimkaanayta Mandera ayaa rabnaa also waxaan rabnaa MCA-yaasha kulli this December holiday hadda la soo dhaafay 2024 waad ku maasantiin horta dadkii MCA-yaasha hadda maartay u qabtay league meelaha kulli Mandera kuwii aan qabanina waxaan ka rajaynayaa January ilaa February inay league ay kana u qabtaan ma way sugayaan maartay ragga ka imaada wadiyaashin tiimka kulli waxay sugayaan inay maartay loo qabta tournament ay sugayaan marka arrintaasaan rabaa inaan haddaan ku soo gabagabeeyo sorry midaan hilmaamay waxa waaye dhanka county government taariikh 13 Maswateen 2024 waxaa naga ballan qaadeen in referee iyo coaches training la qaban doono ilaa hadda waan sugaynaa coaches trainingkaas waxaan rabnaa wasiir Ali Maqaar iyo chief officer Abdulwahab Mandera County waxay sugaysaa coaches training iyo referee training in la sameeyo ay sugayaan midaasna kulay muddo gaaban inaad noo qaban doontiin ayaan filaa midaas ayaa naga codsiya Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacayga waa Cabdi Maalik Nuno Ibrahim waxaan ku magac dheerahay Cawiif waxaan ahay FKF Youth Representative Branch arrimaha maanta inta aan u fadhinay oo maaragtay ilaa isaa ka mid aan ugu jirnay waxay ahayd arrintii Mandera East sanatan oo chairmanka maaragtay in ninkii Liibaan Yaxya xilkiisa uu ku waayay sababa asaga uu maaragtay sabab u ahay awgeeda uuna ogaay inuu weyn doono marka waxaan dhihi lahay qoriga tuurtay qajaftiisa lagama naxaa la yiri kulay wuxuu asaga geysay darteedu ku waayay waxaan dhihi lahay asagana maaragtay hor u sii soco maaragtay adduunkaada Allah kula sii garab galo ninka hadda imaadana waxaan dhihi lahay asagana soo dhawow adigana xilka lagu doortay Ilaahay ha kula garab galo sababaha Liiboy looga qaaday ama Liibaan Yaxya looga qaaday maaragtay xilkiisa uu ku waayay kulay waa inuu asaga cadiifad inuu dadka la soo dhaxgalay maaragtay uu waxyaabo aan loo joogin uu la yimiday annagoo ogeyn maaragtay xilkaas loo dhiibayay maaragtay dhibaatadii loo maray maaragtay iyo sidii asagoo mucaaradadiisa ay badneed annaga aan dhahnay bal ninkan nin aad iyo aad wax u qaban karo waaye bal magaalada ha maamulaan dhahnay waxay dadkii shalay uga cararayeen oo maanta maaragtay la yimiday kulay waxaan dhihi lahaa asagana xilkii Ilaahay kuuma asturo ninka hadda ka bedel Ilaahay ku asturo marka intii kale oo maaragtay meeshii timid maanta 65 team ayagana ay isla wada qaateen dhamaan ay tahay markii ugu horeysay Mandera kooxaha dhan ayna maaragtay insaan oo kale isku la qaataan shacbiyada lagu siiyay adigana Bashiir waxaan ku dheelahay midaad adiga kasbato waaye marka adigana maski dabada iska qaniin ha noqonin sidii ninka hore dabada iska qaniino kaleeto maaragtay arrimaha hore u sii wad tafaraaruq qandamay kooxaha aday ku sugayaan horumar ay ka rabaan funaan ay ka rabaan traininyaal inaad u keentay ka rabaan kulay nin shaqo badan inaad waa lagu yahay shaqadaada ku sii soco marka wallahu subhanahu wa ta'ala alam wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaydu waa Bashir Ali Ibrahim popularly known as Bashir Baquli. Firstly, I wanted to thank the FKF branch and also the sub branch and also the teams who have faith in me to appoint me as an interim sub branch chairman Mandera East. The other one I wanted to say is there is a lot of problems in some Mandera East sub branch. Inshallah, within the period of time, I will make a lot of changes in Mandera East sub branch. Thank you all.